halka warkaasi aad kala socotaanna waa VOA Washington. door wanaagsan dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed. dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada ugu halista badan ee ay wariyaashu ka howlgalaan halkaas oo wariyaasha loogu geysto falal isugu jira dilal dhaawacyo jirdil xarig aan loo meeldayin iyo dhibaatooyin kale barnaamijka madasha dhalinyarada waxaynu toddobaadkan ku eegi doonaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada ka dhanka ah xuriyatul qowlka iyo sidoo kale dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ka howlgala gudaha Soomaaliya waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty Nuur Ismaaciil Sheekh oo kamid ah wariyaasha dhibaatada loogu geystay magaalada Muqdisho kadibna dhawaan u soo qaxay magaalada Nairobi iyo Cabdalla Axmed Muumin oo ah u dhaqdhaqaaqay arrimaha wariyaasha ka howlgala Soomaaliya ahna xogayaha ururka saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo SJS marka hore ku soo dhawaada barnaamijka aad baa u mahadsantahay Khadar Cabdullaahi bal marka hore warbixintan aad soo saarteen ka Amnesty ahaan ee ka hadlaysa dhibaatooyinka ay dhalinyarada wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta ay la kulmayaan faahfaahinada si aad baa u mahadsantahay Khadar tacadiyada Amnesty International warbixinteeda baaritaanada aan sameynay ka soo baxay aan warbixinta ku qornay waxa kamid ah in wariyaasha ay dilal loo geystay 5 wariyaasha kamid ah waxa lagu dilay weerar al-shabaab ay geysteen labo kamid ah wariyaasha waxa dilay dad aan la aqoonin mid kamid ahna waxa dilay askari police oo dawladda ka tirsan waxa ognahay ninka asaga oo booliska in maxkamadda militariga ay xukuntay laakiin ilaa haatan aan la qabanin oo cadaaladda aan wali la horkeenin sidoo kale warbixintu waxay aad u eegaysaa tacadiyada kale ee wariyaasha soo galay oo kamid yihiin in wariyaasha la jir dilay oo askar ka tirsan dawladda ama saraakiil kale oo dawladda ka tirsan ay jir dileen ama ay handadeen ama xabsiyaba la geeyay mararka qaarkood wariyaasha si sharci darre ah xabsiga loo geeyay sidoo kale warbixintu waxaan ku eegaynaa in 3 xarun warbaahineed la weeraray oo ay kamid yihiin Universal TV Radio Daljir iyo RTN waxaan kaloon warbixintu aad oo baaritaanadii aan sameynay ka soo baxay in dawladda madaxweyne Farmaajo ay aad u isticmaashay laba arrin oo cusub oo ah in idaacadaha ama warbaahinta milkiilayaasha iska leh iyo agaasimayaashooda qaar kamid ah ay laaluush siinaysay markaas oo ay faafreeb ku sameysay arrintaas wariyaasha idaacadaha laaluushka qaadanaya ka shaqeynayeen marka ay dib ku noqotay in ay si xor ah wax u soo tabiyaan oo eedaha ama warbixinada la xiriira waxyaabo dawladda aan raali ka ahayn ay ku adkaatay inay soo tabiyaan sidoo kale waxaan warbixinta ku eegaynaa arrin soo cusboonatay oo ah in dawladda ay samaysatay kooxo ilaaliya oo indha waxyaabaha dhalinyarada iyo wariyaasha iyo guud ahaan dadka kale ee dawladda ka soo horjooda ay Facebook-yadooda ama baraha bulshada ku soo qoraan halkaas oo ay saraakiil dawladda ka tirsan ay soo wacaan markaasi oo ay ku yiraahdaan waxyaabaha Facebook ku qortay ka bixi hadii kale arinta noocan ah kugu dhacayso oo loo cagjugleynay markaas inkastoo VOA aysan cadeyn karin cadeemaha aad haystaan oo wali aysan arkin laakiin dawladda Soomaaliya ma la xiriirteen oo markii aad warbixintan sameeyseen warbixinta markaan sameeynay dawladda waxaan u dirnay su'aalo faahfaahsan oo aan ku weydiinayno waxyaabihii aan ugu sharaxayno waxyaabihii aan ogaanay oo markaas kaga dalbanay in ay nala wadaagaan wax macluumaad ah oo ku saabsan kiisaskaas midalan hadii qof la xiray hebel hadii la xiray dawladda waxaan lahayn hebel in la xiraan ognahay sababta loo xiray noo sheega ama hebel waa la jir dilay qofkii jir dilay magaaladu jooga wali askari weeye maxaa ku dhacay noo sheega marka inta badan dawladdu way iska fogeynayeen eedamaha aan u jeedinay laakiin wax cadeyn ah oo wixii aan u bandhignay aan ku burino nalamina wadaagay waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Nuur Ismaaciil Sheekh oo kamid ah wariyaasha dhalinyarada wariyaasha ah ee ka howlgali jiray magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana sidoo kale kamid ahaa wariyaashii la dhibaateeyay ee ay hay'adda Amnesty ay ku sheegtay warbixinteeda ee dhibaatada lagu geystay Muqdisho Nuur ku soo dhawow barnaamijka madasha maxaa dhibaato ah oo lagu geystay oo aad xamar iyo reportka ay soo saartay Amnesty nooga sheegi kartaa qadar waa dhowhay waa mahadsantahay Muqdisho aniga dadkii wariyaashii lagu xiray ayaan kamid ahay waliba safar sharci darro ah ayaa waxaan u xirnaa muddo
12 maalin ayadoo maxkamadda la soo taagin kadibna xilligaas wixii ka dambeeyay waxa ugu soo batay taleefano kala duwan oo soo wacayo oo hanjabaadi kala duwan oo lagu leeyahay marka hore waxay aad xarig balse hadda waa marka lagu dilaa maadaama xarigii lagu hayn waayay oo madii qaylisay oo saxaafadii iyo meel walba markan waxa waa in lagu dilaa lagu aamusiyaa hal kale aan leedahay ma jiraan wixii xilligaas ka dambeeyay waxaan go'aansaday inaan dalka soo baxo yaa marka sidaa kugu hanjabaya waxa igu hanjabayo oo soo wacayo taleefano kala duwan oo aan garanayno oo soo wacay inta badan iyo xubno dawladda ku dhow oo aan rabin hadda inaan sheego magaceedo marka kadib waxaan go'aansaday inaan dalka isaga soo baxo maadaama 12 maalin oo sharci darro aan xirnay maxkamad la soo taagin muddo inta la eg dalka inaan ka soo tago ayaan go'aansaday markaan go'aansaday kadib baasaboorka ayaa iga dhacsanay baasaboorka Soomaaliga waxa muddo 3 bilood ay ku dhawaad ay ugu qaadatay inaan baasaboorka Soomaaliga soo helo si aan dalka ugu soo baxo intaasna xarunta CID-da ayaa waxay ugu tiri laguma sii karo wax warqad aan ku siinayna malahan migration markaan imaadeen waxa lagu yiri waa inaan meel kala duwan soo martaa warqada aan la timaada kadib ayaa baasaboorkii lagu cusboonaysiinaya marka muddadaas dheer kadib oo aan siyaabo kala duwan iyo meel kala duwan aan u maray si aan ku helahay baasaboorka kadib ayaan soo gaaray magaalada Nairobi dalka Kenya dawladda Soomaaliya way hadashay oo waxay ka falcelisay warbixinta ay soo saartay Amnesty waxay tiri wax dhibaato ah oo loo geystay wariyaal ma jiraan way beenisay sidee marka u aragtaa jawaabta dawladda Soomaaliya marnaba lagama sugayn amba lagama filayn in ay tiraahdo arintaas annaga sameeynay marka waa isdifaacaysa kulli waxay isku difaacaysaane in ay arrimahaas ay geysay weli waxay caburinti iyo tacadiidi way sii socdaan oo wax loo jeedo waa in laga qabsan karin waayahay waan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdalla Axmed Muumin oo ka tirsan ururada Soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha saxafiyiinta gaar ahaan waxa weeye Cabdalla xogayaha ururka SGS loo soo gaabiyo Cabdalla maxaa ka jira tacadiyadan ay hay'adda Amnesty soo bandhigtay iyo falcelinta dawladda maxaa noogu sheegi kartaa qadar xaalad waa mahadsantahay adiga iyo bahda VOA dhageystayaasha salaamaya warbixintan Amnesty International ayaa qortay oo cadeymaheeda iyo raadraacayda iyo baaritaanka wax oo dhan Amnesty International mas'uulka ah Cabdullaahina waa hadlay isaga qofkii warbixinta ururinaya isku diyaarinayay muddada dheer ahaa annaga ururka suxufiyiinta Soomaaliya SGS waxa naga aadan waxay tahay shakhsiyan aniga Cabdullaahan ka xogay ahaan Amnesty International wala kulmeen magaalada Muqdisho wala kulmeen xaaladda guud iyo document gareynayna gaar ahaan tacdiidada ku dhaca suxufiyiinta ama xarika ahdo ama handadaada kala hadan ama shaqada laga joojiyo suxufiyiinta ahdan oo public ah ayaan siinay cadeymahaasna marka annaga kaliya laga tago waxay ahaan cadeemo oo af Ingiriis lagu dhaho public domain oo banaanka yaalo oo online ka laga heli karo idaacadaha dadka hataa gabdhaha suuqa jooga marka la wareysto laga heli karo waay tacdiidan ma jiraan way jiraan waa wax dhaca ilaa hadday socdaan laakiin waxa cusub waxay tahay qadarow 3 sano u dambeysay ay xaaladdu ay ka soo dareysay wax badan lama socon oo ama lagama sheegin gaar ahaan markii madaxweynaha Farmaajo uu meesha yimid rajada jirta waxay ahayd in maarta wax badan isbedeli doonaan xorriyadda saxaafadda hagaagi doonto laakiin waxa muuqata in arrintu ka soo dareysay sidaad warbixinta ay sheegayso waxa annaga yaab nagu ah oo maarta aan aad iyo aad ula fajacnay in dawladda isticmaalaysay lacag si ay u bahdisho suxufiyiinta Soomaaliyeed oo wararkooda iyo laakiin dawladdu way beenisay arrintaas way beenisay qadar kaliya kuma filaanayso haday beenis dawladdu ay la timaado cadeyn sida warbixinta waa cadeyn u keenayso in cadeyn u keenta warbixinta waxa ku cad oo markaan akhriyay ay tilmaamaysaa in Amnesty la kulantay dad kamid ah xarumaha warbaahinta gaar ahaan dad hore uga soo shaqeeyay maamulada maarta warbaahinta oo qiranaya in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ay la kulmi jireen hoteelo ay markaa lacag ku siin jireen hadii dawladdu rabtay beeniso inay taas cadeysaa iyada u talaataas laakiin waxaan rabaa inaan sheego Cabdullaahan ana xafiiskayga Muqdisho ku yaala waxa aan arko wariyaasha Soomaaliyeed ku dhex jira maalin walba ani laftirkayga wariyaan waxbaan qoraa wareysiyaan qaada magaalada Marca waxa dhaca waan ka warqabaa waan arkaa maalin walba ay ugu dhacaan saaxiibada ay ku dhacaan tacdiid waa balaarihiin inta hadda la sheegay waxaan qabaa inay ka badan yihiin laakiin midda meesha ku jirta qadarow ma ahan ma dhaceen iyo waa la beeniyay ma aha waxa meesha ku jira waxay tahay dawladda Soomaaliyeed daacad ta noqoto banaanka soo istaagto ay dhahdo dambigan waa dhacay maanta waxaan maqlay madaxweynaha oo qiranaya in
maaragtay tacadi Somaliland iyo hore ugu dhacay in maaragtay dawladda raadgelin ka bixis sidaas oo kale madaxweynaha iyo dawladda hay'adaha kala duwan ee sharci jadinta dastuurka iyo ku dhaqmay banaanka yimaadana dhan waxaan waa dhacay laakiin sida u saxnaa hana raacin talooyinka ku qoran warbixinta Amnesty oo ay kamid tahay qaabka wax lagu sixi karo way sheegeen raacan waayahay waan kugu soo noqonayaa Cabdullaahi warbixintiina maxaa xilligan ku soo beegay warbixintanada waxaa xilligan ku soo beegay waxaan qiimeynaynay 3 sano ee madaxweyne farmaajo madaxweynaha ahaa xaaladda xuriyatul qowlka sidii ahayd guud ahaan iyo tan xuriyadda saxaafadda marka waxaan kaloon ugu soo beegnay xilligan in muddadii doorashooyinka ay soo dhow yihiin oo aan cabsi iyo walaac ka muujinaynay in ay macquul tahay inay sii kordhaan tacdiidan caburintan aan aragnay gaar ahaan midda ku saabsan in wariyaasha waxyaabaha dowladda lagu maaragtay lagu mucaaradayo ama lagaga soo horjeedo ayna soo tabin karin waxyaabaha dawladda aan raaliga ka ahayn sida weerarada al-shabaab ay geystaan oo kale ayna soo tabin karin in dadka mucaaradka ah ama madaxda mucaaradka aan la wareysan karin markaas walaacaas ayaan qabnay waxaan markaa talooyin inaan usoo jeedino dawladda maadaama xilligaa la galayay oo waxyaabaha ka khaldan ay u saxdo oo u ogolaato dadka shacabka ee Soomaaliyeed in ay helaan macluumaad ku filan oo waafi ah oo ay go'aan ka gaari karaan waxaan rabay in aan maadaama aan akhriyay jawaabtii ay dawladda ka bixisay eedeymaha aan soo joodinay in aan sheego in ay dawladdu horta inaan saxo arrinta in Amnesty kaliya ayna ka hadlaynin xorriyadda saxaafadda ay ka hadlayso guud ahaan xorriyatul qowlka marka magaca warbixinta oo bogga koowaad ku qoran xataa waa hadaad akhriso waxa ku qoran tacadiyada ka dhanka ah xorriyatul qowlka ee Soomaaliya ka dhacay ma ahan xorriyadda saxaafadda midaas inaan ka saxan rabay dawladda hadii si khaldan inay u fahansan yihiin bad moodaa midda kale way iska fogeeyeen waxyaabaha dhacay oo way inkireen marka waxaan rabnaa inay dawladda ay midalan cadeyso waxa inkiraan waxay yihiin ma waxay inkiraan wariyaasha 8 ah la dilay miyeen waxba ka jirin midalan ma waxay waxba ka jirin wariyaasha la xirxiray sida Nuur oo halkan la fadhiyo kale oo afkiisi ku hadlayo ma waxay diidaysaa wariyaasha la jirdilay ama la garaacay oo kamid yahay Cabdiaziz Bilow midalan oo soo hadlay ma waxay diidaysaa wariyaasha wadanka ka cararay oo Munassar iyo Zakariya Maxamed Timacade iyo Ali Aadan Muumin ay kamid yihiin macnaha waxa ay inkirayso dawladda oo ay leedahay iska fogeynay waxaan waxba kama jiraan gabi ahaanba in ay kala cadeysaa fiicnaan lahayd maadaama wax walbaba case kastaba uu leeyahay taariikh iyo qof uu ku dhacay oo dadkana intooda badanba ay nool yihiin oo ayaga laga cadeyn karo la wareysan karo inay laba saacadood gudaheed ay dawladda waraaq inkiraad soo qorto arrin cajiib ah tacadiyada kale ee gobolada dalka ka dhaca sida gobolada ay maamulaan kooxda al-shabaab oo kaleeto ma ka hadasheen warbixintiina aad waxaan kaga hadlaynaa tacadiyada ka dhacay midalan Jubbaland oo kale wariye saabir la yiraahdo jiro oo magaalada Kismaayo lagu xiray sanadka 2018 oo warbixin diyaarinayo oo aad loo jirdilay oo asagana wadanka iskaga cararay markii dambe waxaan wax ka qornay wariye kale asagana la yiraahdo Cabdiaziz Folere oo lagu xiray Hirshabelle mar uu soo tabiyay warbixin ay dawladda Hirshabelle raalli ayna ka noqonin waxaan kaga hadlaynaa weerarada loo geystay idaacadaha radio Daljir midalan ee Puntland ka dhacay iyo RTN waxaan kaloo kaga hadlaynaa dhacdooyin kale oo maaragtay fara badan guud ahaan ka dhacay Muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo Puntland Nuur wariyaasha dhalinyarada ah ee ku howlgalaya dalka gaar ahaan Muqdisho oo kale ay la kulmaan dhibaatooyinka noocan oo kale ama sida midda adiga aad la kulantay oo kale sidee ayay ugu suura galaysaa ama xaq ugu leeyihiin in marka ay la kulmaan arrimahan oo kale ay sharciga u helaan ama ay u doodaan ama ay xaq ay leeyihiin ay u dhacsadaan arrimahan oo kale markay dhacdo ma jirto sharci ay tigi karaan maanta ay u doodi karo maxkamadda maanta aad tagto oo aad tiraahdo arrintan ay qabsatay ma jirto garsoor madax bannaan oo dalka ka jira tusaale ahaan aniga markii la soo xiray maalmo kadib 4 maalin kadib waxa la keenay maxkamadda garsooraha la keenay garsoorihii marka meeshii la keenay waxa la ninkan waqtiga uu kordhi hasii xiraado garsoorihii wuxuu fiiriyay isku eegay waxyaabihii lagu eedeynayay markaas
markaasuu wuxuu yiri macquul maahan waxa lagu soo xiray ninkan wariyaha arrimahan markaas waxa lagu yiraahdaa amar madaxtooye ayaa lagu xiray ninkan hadii dantahay hadda telefoon laga soo waca ninkii garsooraha maxkamadda ka ahaa asagoo arinta aad ugu xun ayuu warqadii muddo kordhinta uu qoray inuu xabsiga lagu sii haayo maadaama telefoon degdeg loo soo diray isla markaa uu xabsiga ku sii hay marka ma jiro garsoor madax banaan oo maanta ay u dacwo karaan wariyaasha Soomaaliyeed markii aad la kulmaysay dhacdadan maxay ku sheegeen ciidamadii ku xirayay maxay kugu xireen markii waxa ii yimid meel maqaaxi oo hotel ayaan fadhiyo Muqdisho kamida waxa la yiri oo isla markii la yimid rag saraakiil oo CID ka socda ayaa ii yimid waxay igu yiraahdeen waxaan lagu yiri ninkaas amba soo xira amba soo dila markaas waxaan ku yiri arintaas macquul maahan daqiiqada kadib gawaarid badan ilaa 12 gaari ay ku yimideen ugu dambeyn waxa la geeyay CID markii la geeyay waxa la igu yiri mucaarad ayaa tahay dadka mucaaradka kaliya ayaa wax ka qorta ninkaas waa laga seexan waa leeyahay hala soo xiray ninka wariyaha ayaa intaas kaliya ayaa ku xiran tahay ma jiro eedayn kale dheeriyo lagu haysto markii oo xabsiga dhaxal geeyna waxa la sheegay in laga qoray kicin shacab oo sameeyay oo maalmo kadib la bedel hadana oo marba bedel lagu sameeyay Cabdalla si loo helo deegaan nabdoon oo dhalinyarada wariyaasha iyo maamulka ka jira dalka ay u wada shaqeeyaan maxay tahay in la raaco sidee lagu heli karaa sidii ay ku wada shaqeyn lahaayeen dhalinyarada wariyaasha iyo dawladda iyo laamaha ammaanka su'aal fiican qadar tanurna waxaan rabaa inaan ku daro ani waxaan qofkii ugu horeeyay kiiska Nuur Ismaaciil markii la xiray ka hadlanaha waxaan ogaaday 24 saac isagoo xiran oo actually waxaan ku tilmaami karaa afduubay sababtoo isagoo inta la soo wacay la khiyaamay oo hotel laga qabsaday oo cidna aan ogeyn marka waxa la sidoo in waxa soo galay intay dhacayaan dawladuna ay maartay in dhacday ka rabto inay intay la soo istaagnaato ay dhahdo waxba ma jiraan iyo maartay wax kasta waa okay su'aasha hadaan u soo laabto si loo helo jawi nabdoon oo lagu wada shaqeeyo oo saxaafadana ku badbaado dawladana shaqadeedii dastuuriga ahayd ee loo diray ma waxa ugu mashquulsantahay dawladda shaqada dastuurigeeda loo diray ay ku qabsato ay kamid tahay in shacabka iyo muwaadiniinta guud oo wariyaashu kamid yihiin amnigooda la sugo si ay u qabsato ko waxa loo baahan yahay dawladdu inay tababar u celisaa oo ay u furtaa hay'adaheeda amniga qaabilsan oo dhalinyaro badan ay ku jiraan qaarkood aan aaminsan inay wanaagsan yihiin niyad fiican leeyihiin laakiin maartay dadka hogaamiye ama saraakiisha ay u isticmaalayaan siyaabo maartay aan saxayn oo dastuurka khilaafsan in dadkaas la baro xuquuqda aadanaha la baro xorriyadda saxaafadda la baro dhaqanka wanaagsan la baro waxa kale muhiim ah iyada dawladda in reform la timaado guud ahaan shuruucda dalka oo ay kamid tahay sharcigan loo isticmaalo maartay dadka in lagu soo qabto ah sharciga la yiraahdo xeerka ciqaabta oo gadigiisaba ah maartay sharci ka yimid Soomaaliya markay xorriyadda qaadatay ka hor oo Talyaani uu Soomaaliya keenay oo amood hadda maxkamadaheena dalka odayaal intooda badan 70 jir iyo 90 jir ay ka yihiin maxkamadaha dalka garsoorayaal ay ka yihiin oo isbedelka adduunka ka dhacay iyo furfurnaanta iyo xorriyadda aan warba u hayn in sharcigaasna reform Soomaaliya dib u hayn lagu sameeyo sharcigan saxaafadda ay hadda jirana la soo celiyo oo madaxweynaha uu saxiixin wada tashi laga furo laga saaro qodobada aan ka cabanayno oo aan tilmaamay oo aan sheegi karno 18 kamid yahay oo 32 kamid yahay oo 29 kamid yahay qodobadaas oo dhan oo maartaa qodobo ka hor imaanaya dastuurka Soomaaliyeed ko shuruucda kale caalamiga Soomaaliya ay waajib ka saaran tahay inay ilaaliso ka hor imaanaya in ayaguna meesha laga saaro baarlamaanka inuu qabto shaqadiisii ahayd in sharciyo dadku ku shaqeeyaan oo nabadgelyo ah ay kamid tahay in la ogolaado xuquuqda isu imaatinka oo micnaheedu yahay dadka Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay urur sameystaan isu yimaadaan danahooda ka tashadaan xuquuqdooda difaacdaan waxaas oo in la ogolaado dawladdu inay iyadana xogta ay hayso oo ay shacabku u baahan yihiin saxaafadda u ogolaato si saxaafadda ay shacabku u gudbiso xogtaas waayahay gabagabadii ma dhici kartaa in warbixintan aad soo saarteen ay xaaladdu siday ahayd ay kasii darto Cabdullaahi waxaan jeclaan lahaa in xaaladda sida hadda ay tahay inay kasii darin waana baaqa aan dawladdu soo joodinayna in wariyaasha dhibaatooyinka loo geystay dhammaantood dhibaatooyinka ku dhacay la ogaado baaritaan arrintaa lagu sameeyo faafreebka iyo cagjugleynta iyo maaragtay in shaqadoodii laga hor istaago in wariyaasha laga daayo waxaynu intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Nairobi barnaamijka waxaa isku soo duway halkaan idinka soo jeedinayay anigoo ah Khadar Maxamuud Xareed tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
qadar maxamuud xareed aad buu u mahadsan yahay haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha